hay'adda Deheli Passport waxa ay soo saartay qiimeynta baasaboorada ugu sarreeya caalamka iyo kuwa ugu hooseeya sanadkan 2019. Qiimeynta waxa lagu muujiyay wadamada baasaboorkoodu heerka sare yahay iyo kuwa uu dhulka yaallo. Kaalinta koobaad waxa wada galay baasaboorada dalalka Japan iyo Singapore waxaana mid kasta oo kamid ah baasabooradaasi lagu tagi karaa 189 wadan. Kaalinta labaadna waxa isku arkay dalalka Finland, Germany iyo South Korea waxaana mid kasta oo kamid ah baasabooradaasi lagu dhex mushaaxi karaa 187 wadan. Kaalinta saddexaadna waxa ku saaxiibay baasaboorada dalalka Denmark, Italy iyo Luxembourg waxaana mid kasta oo kamid ah baasabooradaasi qofkii haysta uu cagaha dhigi karaa 186 wadan. Kaalinta afraadna waxa ku kulmay baasaboorada dalalka Faransiiska, Spain iyo Sweden waxaana mid kasta oo kamid ah baasabooradaasi laga aqoonsan yahay 185 wadan. Kaalinta shanaadna waxa gamcaha is haysta dalalka Australia, Netherlands, Portugal iyo Switzerland waxaana mid kasta oo kamid ah baasabooradaasi haddii aad haysato aad cagaha dhigi kartaa 184 wadan. Kaalinta lixaadna waxa hafleynaya dalalka Belgium, Canada, Croatia, Ireland, Norway, UK iyo Mareykanka waxaana mid kasta oo kamid ah baasabooradaasi laga aqoonsan yahay 183 dal. Kaalinta toddobaadna waxa gashay jasiiradda Malta waxaana baasaboorkeeda laga aqoonsan yahay 182 dal. Kaalinta sideedaadna waxa garaarta tuuraysa Czech Republic waxaana baasaboorkeeda lagu tagi karaa 182 dal. Kaalinta sagaalaadna waxa ka lusha dalalka Australia, Iceland, Lithuania iyo New Zealand waxaana mid kasta oo kamid ah baasabooradaasi lagu tagi karaa 180 dal. Kaalinta tobnaadna waxa gurguranaya dalalka Latvia, Slovakia iyo Slovenia waxaana mid kasta oo kamid ah baasabooradaasi lagu tagi karaa 179 dal. Dhinaca kale qiimeynta hay'addu soo saartay sanadkani waxa kale oo lagu xusay dalalka ay baasaboorradoodu heerka ugu sarreeya kaga jiraan dalalka lagu tagi karo iyo kuwa fiisa la'aanta lagu gali karo. Hay'addu waxa ay baasaboorrada ugu liita caalamka sanadkani ku sheegtay in ay yihiin baasaboorrada laga isticmaalo dalalka Eritrea, Iran, Lebanon, Kuuriyada Waqooyi, Nepal, Libya, Palestine, Sudan, Yemen, Soomaaliya, Pakistan, Syria, Iraq iyo Afghanistan. Hay'addu waxa ay qiimeynteeda ku sheegtay in baasaboorka Soomaaliya qofka haysto uu ku tagi karo 30 iyo 1 wadan.